بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناقصنا خيرتي داودياش قيمة يقدرين تنقم مدن ملك صون نقد داونيسان كسر دودا وركا تلفزيون قرن كسوماليلان قضبضا وركا وقدر كلنا وحاكمدا mudanayaasha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay ku ansixiyeen qodobada ajandaha kala fadhiga 11 ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland. geesta kalena xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warbixin xeerka wadooyinka waxay ka dhageysteen wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland. marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Aamina Sheekh Maxamuud Jirde ayaa dhagax dhigtay dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa. intaasi waa qodobada warka ugu door corona tan isagoo fidsan. mudanayaasha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay ku ansixiyeen qodobada ajandaha kala fadhiga 11 ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland sida warbixintan ugu diyaariyay wariyahayga Ridwaan Caydiid. fadhiweynaha mudanayaasha aqalka golaha guurtida shir gudoominaya gudoomiyaha golaha guurtida mudane Saleebaan Maxamuud Aadan oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Siciid Jaamac Ali ayaa xildhibaanada golaha guurtidu gudagaleen dooda ajandaha kala fadhiga 11 ee golaha guurtida. mudanayaasha ayaa si qoto dheer u sharaxay ugana dooday qodobada ajandahan iyo si kululna isku weydaarsaday fikradaha iyo qodobada wax ka bedelka ajandaha kala fadhiga 11 ee golaha guurtida iyo welibana kaabid ku sameeyay araarta mudanayaasha iyo fikradooda kadib ayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida mudane Siciid Jaamac Ali ayaa xildhibaanada ku wargeliyay in cod qacantaaga loo qaado ansixinta qodobada ajandaha kala fadhiga 11 ee golaha guurtidu uu ku hawlgeli doono. marka waxa cod loo qaadayaa ajandihii kala fadhiga 11 sidii uu markii hore u yeelay marka lagu daro qodobka shanaad lagu daro xarafka xa oo guddiga cadaaladda qodobka lixaadna lagu daro xarafka raada oo ah u yeerista gudoomiyaha bangiga dhexe labada qodob marka lagu daro qodobka xarafka saddexaad waxa weeyaan waxay ahayd waa technical error bay ahayd oo tahriibta ajandihii sidii uu markii hore u yeelay waxa ku soo kordhay labada xaraf taas marka cod loogu qaadaya intii ogol gacanta ha taagto ajandaha waxa ogolaaday sida uu u yaalo marka lagu daro qodobka shanaad xarafka xa marka lagu daro guddiga cadaaladda iyo qodobka lixaad xarafkiisa da marka lagu daro gudoomiyaha weermada gudoomiyaha waxa ogolaaday 44 45 xubnood baa ogolaaday waxa diiday hal mudana diiday gudoomiyuhuna ma codayn sidaas uu ku ansaxay ajandihii kala fadhiga 11 sidaas uu ku ansaxay wabillahi tawfiiq. geesta kalena xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay warbixin ku saabsan xeerka wadooyinka ka dhageysteen wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu markale warbixintan ugu diyaariyay wariyahayga Ridwaan Caydiid. fadhiga dastuuriga xildhibaanada golaha wakiilada shir gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa fadhiga mudanayaasha wakiilada ayaa warbixin ku saabsan xeerka horumarinta wadooyinka oo ay soo diyaarisay wasaaradda madaxtooyadu ka dhageystay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland. wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa si xeel dheer u sharaxay ahmiyadda xeerka horumarinta wadooyinka iyo ujeedooyinka ka dambeeya aasaaskiisa iyo soo sameyntiisa isagoo wasiirku iftiimiyay baahida loo qabo dhismaha horumarinta wadooyinka dalka oo dhibaato iyo khasaare ba'an ku haya bulshada Soomaaliland. wasiirka ayaa ku dheeraaday manfaca iyo faa'iidada xeerkani u yeelan doono bulshada reer Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland muhiimna ay tahay xukuumadda Soomaaliland markay aragtay baahiyaha weyn ee loo qabo in xeer noocan oo kala la sameeyo si wax loogu qabto bulshada Soomaaliland oo laga taakuleeyo dhinaca wadooyinka dila ilaa iyo xadka halka uu ku yaalo la saxanood ka shaysan oo laamiga inta dheeraran ayaynu wax laamiga may badnayn ama aad bay u yareen wax laamiga oo aynu ku daro oo inagu samaysano oo ka horeeyay inta xukuumadda cusub ee madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo uu hogaaminayay wax la taaban karo waxa aynu ku hawlanaan jiray in la buuxiyo laamiga
horeynu haysanin la buuxbuuxiyo waxa sidoo kale jira wadooyin isku xidha gobolada iyo degmooyinka oo aan laami ahayn iyaga laftooduna u baahan la dayactiro la horumariyo baahiyaha noocaas jira dartood ayaa loo diyaariyay xeerkan iyadoo laga duulayo in wixii wada inoo jirayna la dayactiro wixii wada la samayn karayo cusubna la sameeyo wadooyinku waxay halbowlo u yihiin ammaanka qaranka iyo isku xidhka iyo xidhiidhka bulshada waxay halbowlo u yihiin dhaqaalaha waxay halbowlo u yihiin guud ahaanba dalka ayay halbowlo u yihiin sidaa darteed bay xukuumaddu prioritigeeda koobaad u saartay iyadoo taa laga duulayana waxaanu diyaarinay xeerkan maadaama aan nidhi xeerka qaabkaas aanu diyaarinay xeerkan wuxuu ku wajahan yahay in dhaqaale loo helo maadaama baahidaasu jirto wadooyinka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada u soo bandhigay su'aalo la xidhiidha xeerka horumarinta wadooyinka ee uu golaha ka hor akhriyay halka mudanayaal kalena ay u soo jeediyeen talooyin iyo tilmaamo hore loogu marinayo xeerkan horumarinta wadooyinka wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa si mugle uga jawaabay weydiimaha xildhibaanadu ay soo bandhigeen mudooyinkii u dambeeyay fadhiyada xildhibaanada golaha wakiilada ayay ku hawlanayeen dhageysiga mas'uuliyiinta iyo madaxda hay'adaha iyo wasaaradaha dawladda ee soo diyaariyay xeerarka hor yaalla golaha wakiilada si tafaasiil iyo warbixin inta dheer ay golaha u horsiiyaan kadibna uu goluhu u qaado ansixinta xeerarkan golaha ka soo bixi doona سعيد شردايبه ردوان عيديد إسماعيل تلفزيون قرنك سوماليلاند برتنka xarunta golaha wakiilada magaalada Hargeysa marwada koobaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Aamina Sheekh Maxamuud Jirde ayaa dhagax dhigtay dhismayaal cusub oo lagu soo kordhinayo xarunta ogoomaha ee magaalada Hargeysa sidoo warkan ugu diyaariyay wariyahayga Axmed Saki Daahir Xasan munaasabad kooban oo lagu qabtay madasha marwada madaxweynaha Soomaaliland ay dhagax dhigaysa ayaa waxa ugu horeyn ka hadashay agaasimaha xarunta agoomaha ee Hargeysa Marwo Caashe Maxamuud Qaalibe taasoo warbixin ka siisay marwada madaxweynaha xaaladda guud ee xarunta agoomaha agaasimaha xarunta agoomaha Caashe Maxamuud Qaalibe ayaa ugu baaqday bulshada Soomaaliland inay gacan ka geystaan hoos u eegidda iyo wariba ka warhaynta caruurta agoomaha ee magaalada Hargeysa waxaan aad iyo aad halkan aan jecelahay inaan ugu soo dhaweeyo oo maanta dhagax dhigi doonta halkan marwada koowaad iyo wasiirka waxbarashada iyo Axmed Cabdi Bakaal oo ah madaxa Soomaaliland ee bisha cas gudoomiyaha ururka bisha cas ee Soomaaliland mudane Axmed Cabdi Bakaal oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday kaalinta ururka bisha cas ee Soomaaliland ku leeyahay xarunta agoomaha iyo sida ay markasta ugu helayeen ka warhayntooda agaasimaha bisha cas ee Soomaaliland Axmed Cabdi Bakaal ayaa sheegay in bisha cas ee Soomaaliland ay mashruucan fulinayso isla markaana ay ku baxayso lacag gaaraysa $120,000 Cabdiraxmaan Axmed Ursiyo oo ku hadlaya magaca hay'adda Amuud Foundation ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay markasta hiil iyo hooba la garab taagan caruurta agoomaha ee ku jirta xaruntaasi waxaana uu halkaasi kaga dhawaaqay lacag gaadhaysa $12,000 oo ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan dhismayaashaasi marwadu ay dhagax dhigtay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo iyaduna ka mid ah madaxdii madashaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in xarunta agoomaha ee Hargeysa ay tahay xarun ay ku jiraan daayirtii dalkan barito la hogaamin lahayn waxaanay ugu baaqday bulshada Soomaaliland in ay markasta hoos u eegaan isla markaana ay ka warayaan waxaana ay ku dheeraatay muhiimadda ay leedahay in markasta hoos loo eego xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa iyo waliba daayirta kala duwan ee ku jirta waxaanay halkaasi uga mahadnaqday marwada madaxweynaha oo ay ku tilmaantay shakhsi markasta ka warhaya xarunta agoomaha ee Hargeysa dhulka agoomaha inta aanu ilaalin karno inta aanu joogno aanu ku dadaalayno in deyrkoogana u soo dhisno guryahana uga dhisno waanu ku runtii waynaga go'anta madaxweynuhuna wuu ku ballan qaaday in hal taako oo meesha agoomaha ay leeyihiin inaan cidina aanay qaadan marka message-kaas ay idin gaadho qofkii waraaqa haystooba imika bedel weydiiso ama meel kale raadso marwada madaxweynaha Soomaaliland Aamina Sheekh Maxamuud Jirde oo si rasmi ah u dhagax dhigtay 2 guri
oo lagu kordhinayo xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ayaa sheegtay in dhismayaashan cusub ay qayb ka yihiin barnaamij kor loogu qaadayo nolosha caruurta ku sugan xarunta agoomaha ee Hargeysa iyadoo ugu baaqday bulshada Soomaaliland ee ku sugan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inay ka soo qayb qaataan horumarka kala duwan ee lagu sameeyo xarunta agoomaha ee Hargeysa. maanta waxay ii tahay aniga maalin sharaf leh waayo xaruntan agoomuhu waa waajib kulligeena wada saaran waa waajib aynan ka galgalan karin sidoo Cabdiraxmaan sheegayay waa caruurteennii waa dalkeennii waa dadkeennii waxaan u soo taagnay 3 sano ka hor xaruntan agoomaha markaanu nimi iyadoo wixeedu xaalkeedu ilaahay un ogaa maantana meesha ay marayso aad iyo aad baan ugu faraxsanay sharafteedana waxa la dadweynaha reer Soomaaliland iyo sharafta ay leedahay hay'adaha inala shaqeeya sida International Red Cross iyo Red Cross Soomaaliland ka mid yihiin iyo maamulka wanaagsan ay heshay xaruntu ee caashi ka madax tahay waayo waxa lagu soo dhiiraday markii la arkay maamul sugan oo daacada oo u shaqeynaya oo ka shaqeysanaynin u meesha hayo. gabagabadii munaasabadaasi ayaa marwada madaxweynaha Soomaaliland Aamine Sheekh Maxamed Jirde ay si rasmi ah u dhagax dhigtay labadaasi guri ee lagu soo kordhinayo xarunta agoomaha ee Hargeysa. wasiirka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay kulan laga hadlayay habka xog ururinta kaasi oo ay ka qayb qaadanayeen xubno ka mid ah shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadku sida warkan ugu diyaariyay Cali Axmed Cawaale. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleemaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa magaalada Hargeysa tababar ugu soo xidhay shaqaalaha caafimaadka ee gobolada Awdal iyo Maroodi Jeex. tababarkan oo ka qaybgalayaasha u socday muddo 10 casho ah ayaa lagu baranayay nidaamka xog ururinta iyo gudbinta iyadoo la adeegsanayo aaladaha casriga ah ee kombiyuutarka. Dr. Saleemaan Ciise Axmed Xagle Toosiye oo munaasabada gabagabada tababarkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ballan qaaday inay wasaarad ahaan ka go'an tahay in la kobciyo isku xidhnaanta shaqaalaha wasaaradda ee dalka guud ahaan ku sugan lana kordhin doono helitaanka xogaha caafimaadka la xidhiidha. xafladan xidhitaanka ee loo samaynayo shaqaalaha ka kala yimid 9 MCH oo halkan ku baranayay sidii ay iyagoo isticmaalaya kombiyuutarro daatadii iyadoo hard copy la soo gudbin jiray imika ama iyadoo waraaqa la soo gudbin jiray imika ay kombiyuutarka iyagoo dul fadhiya soo diri karaan. waa horumar ballaaran oo weyn oo aynu qaadnay. waxaa lagaga maarmayaa warar badan oo lala soo habsaami lahaa. marka waa horumar wacan oo xagga tiknoolajiyadda wasaaraddu ay gaadhay. 9 MCH ee imika tababarka la siiyey ee 10 casho qaatay waa tijaabo. waxaana qorshahayagu yahay inaanu dhammaan gaadhsiino meel kasta oo xarun caafimaad ah. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saleemaan Ciise Axmed waxa uu kula dardaarmay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee tababarka qaatay inay ku dadaalaan sidii looga midho-dhalin lahaa siyaasadda caafimaad ee dalku leeyahay. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ka furay kulan laga hadlayay siyaabaha looga hortago alaaba xanuunada casiiba xoolaha sida warkan ugu diyaariyay wariyahayga Mustafa Saacadoole. kulankan ay ka soo qayb galeen dhammaanba dhakhaatiirta xanaanada xoolaha iyo waliba hay'adaha ku shaqada leh caafimaadinta xoolaha nool ayaa wareen hadal halkaasi ka jeediyay Dr. Sabriam oo kamid ah mas'uuliyiinta xoolaha ee FAO ayaa waxa uu ka warramay wada shaqaynta ballaaran ee ka dhaxaysa hay'adaasi iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. wuxuuna Dr. Sabriam ku dheeraday sida ay muhiimka u tahay in lagu dhaqmo siyaasadda wasaaradda u degsan ee caafimaadinta xoolaha nool oo ah laf-dhabarta dhaqaalaha bulshada. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdi Daahir Cali oo isagu furay kulankan ballaaran ayaa ugu horreyn waxa uu ka warramay siyaasadda xukuumadda ee ku jihaysan horumarinta iyo caafimaadka xoolaha nool ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. wuxuuna Dr. Cabdi Daahir ka warramay muddadii uu xilka wasaaraddaasi hayay howlihii ballaarnaa ee ay ka qabteen dhinaca caafimaadinta iyo tallaalka xoolaha nool oo dhammaanba laga hirgeliyey dhammaanba goobaha ay ku dhaqan yihiin xoolaha nool ee 6 gobol ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. wuxuuna wasiirku sheegay in xukuumaddan
somalilan ay ka go-an tahay sidii xoolaha nool oo ah lafdhabarta dhaqaalaha bulshada reer somalilan ay u noqon lahayn kuwo ay ka reeban yihiin dhammaanba xanuunada ragaadiya ganacsigooda iyo weliba oontoodaba wasiirka oo arrintaa ka hadlaya waxaa ka mid ah hadalladiisii waxaan nasiib wanaagiya inaan kala soo qayb galo kulankan qiimaha leh aynu maanta ku samayno tababar sidii loogu hortegi lahaa ama loo qiimeyn lahaa xaaladaha degdega ee xoolaha ku yimaada sidii loo abbaari lahaa oo nidaam midaysan loogu abbaari lahaa caalamku sidii loogu hortegi lahaa dhibaatooyinka xoolaha saameeya ee ku yimaada ay ugu badan tahay cudurrada khatarta ee soo food saara xoolaha ama xoolaha ku keena dhib caafimaadkooda ama xoolaha saameyn ku yeeshay ganacsigeennii maanta sidii aynu u samayn lahayn tababarkan aynu u dhigi lahayn saldhig ugu dhigi lahayn qaabkii loo abbaari lahaa ama loo waajihi lahaa xaaladaha degdega ee ku yimaada xoolaha nool ku yimaada aynu maanta shirkan isugu nimid shirkan oo ay ka soo qayb gashay hay-adda FAO ay ka soo qayb gashay dhammaan xubnaheeda muhiimka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ay ka soo qayb gasheen waxaan rajaynayaa muddadaas 3 cishada ee kooban inaad wax fara badan oo anfaca xoolaha gobolka iyo xoolaha guud ahaanba adduunkaba inay u noqon doonaan tallaabo wanaagsan oo muhiima oo aynu ku wajihi lahayn si aynu hawshaas uga qayb qaadan lahayn kulankan oo wasaaradda xanaanada xoolaha ay kala qayb qaadatay hay'adda FAO ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah barasaabka gobolka Awdal ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana sheegay inay gabagaba tahay 5 kiiloomitir ee ugu dambeeyay dhismaha wadada isku xidha Dila iyo Boorame sida warkan ugu diyaariyay wariyahayaga Abakar Xasan Caafi maanta ayaa 5 kiiloomitir iyo 300 ee xukuumadda Somaliland ay lacagta bixisay la shubay laamidii iyo daamurkiiba waxaa munaasabada lagu shubayay daamirkaasi 5 kiiloomitir iyo 300 ka qayb galay barasaabka gobolka Awdal oo uu heliyo xogayaha gobolka Awdal iyo maamulka hay'adda Asarda ee horumarinta wadooyinka gobolada Awdal iyo Salal waxaana munaasabadaasi ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Asarda Cabdilaahi Xaaji Ciise waxaana uu ka waramay waxay daba socotaa qaybtii hore 10 kiiloomitir ahayd ee xukuumadda Somaliland ay bixisay ayay daba socotaa ilaahay fadligii dariiqa intiisii badneed waa uu naga diyaar waxaan maanta bilaabaynaa inaan shubno daamurkii ayaan bilaabaynaa aad baan ugu mahad celinaynaa sida fiican ee xukuumadda sare iyo xukuumadda gobolka ay mar walba noo galbi sugaan asarda ahaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa xukuumadduna waxaan leenahay waajibkeygii qaran ee dariiqa kaga aadanaa alxamdulilah way qabatay sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay Abubakar Xuseen Macaad Shinadheere oo ka waramay markaa waxaan mahad badan uga soo celinaynaa ama uga soo jeedinaynaa dawladda oo mahadda koowaad leh loo suurtagelisay inay 16 kiiloomitir markaa waxaanu halkan uga soo jeedinaynaa marsaxaadka in sidaa ay dawladda iyo dadweynaha aanu ku dhisayno sidaanoo gacmaha isku haysan Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawaar Sheekh beledka magaalada Boorama ayaa isaguna carabka ku dhuftay ilaah waa mahad leh aan mahad mar labaad u celinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo oo madax ka yahay oo fulisay ballanqaadkii ay noo sheegeen markii aanu wadada bilownay ay yiraahdeen intii taagtiina ahayd waad samayseen inta dambe anaga qaadayna barasaabka gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayar oo ka hadlayay munaasabadaasi ayaa cadeeyay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Siiraayo wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan wax runtii ku dayasho mudan weeyaan waxaan ka marqaati kaciyaa in midowga wadooyinka in la dhisan karo oo hawl la qabsan kara ay tahay inay hormud ka tahay Boorama وعافي تيفيغا قرنك سوماليلاند بورما dowladda hoose magaalada Hargeysa ayaa bartamaha caasimadda magaalada Hargeysa waxay ka bilowday olole kor lagu qaadayo bilicda caasimadda oo la soo iska kaashanayaan dowladda hoose magaalada Hargeysa iyo dadweynaha ku dhaqan caasimadda sida warbixinta ugu diyaariyay wariyahayga Xamse Cali Bulbul dowladda hoose magaalada Hargeysa waxay bilowday dhigitaanka marmarka oo qayb ka qurxinta caasimadda magaalada Hargeysa oo qorshihii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland uu faray maayarada dalka inay bilicda caasimadaha kor u qaadaan
maayarka caasimada magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid iyo xildhibaano ka mid a golaha deegaanka iyo saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha bulshada ayaa waxay kormeel ku teegeen suuqa waaheen oo laga bilaabay dhigitaanka marmalkii ugu horeeyey ee lagu qurxinayo caasimada magaalada hargeysa maayarka caasimada magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid oo war kooban siiyey warbaahinta waxa uu sheegay inay qayb ka tahay oo uu hore u dhexdhigay in marba lagu sameeyo goobaha ganacsiga ee caasimada magaalada hargeysa waxaanu yidhi hawshii marmaristan halkan maalin hore dhagax dhignay ayaa intii hore waxa la banaynayay dadkii deganaa halkan iyadoo hawshani maalin habeen mooyaan maalin soconayn oo maalintii ay dadku meeradaha ku ganacsanayaan iminka xilligan habeennimada ah oo wixii ka bilaabma 11 habeennimo ilaa ay shaqadu xilligaas socon doonto waa beriga oo meerad walba in la dhameeyo dhowrkii meeradoodba habeen in la dhameeyo shacbigana waxaan ka codsanayaa inaanay qofba marka hawshan la bilaabo si ay wax isku siman noqdaan inay sikadihiiba si ay isugu xidhmaan in cid gooni wada samayso oo aanay noqon muxuu ahaa wax qof walba iska dhigo oo waxay dadku ku jabaan oo mushkilad kale oo kala dheerayna noqon hawshaasina saasay ku socon doontaa waxaan halkan salaan uga diraysnaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hawshan nagu dhiirigeliyey qayb weyna ka ah agaasimaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose magaalada hargeysa khadar yuusuf cali xildhibaan shahar oo ka mid ah golaha deegaanka caasimada hargeysa oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in waqti dambe oo xalay ahaa ay bilaabaan howlgal ballaaran oo bilicda caasimada kor lagu qaadayo oo la dhigayo marmarka waxay yidhaahdeen caawa waxaa farxad weyn noo ah inay noo bilaawantay mashruucii marmar dhigista caasimadda oo runtii ka bilaabmay xuduntii caasimadda downtownka gaar ahaan city centerka ama agtiisa runtii fooqa daabshiil oo bartanka xudunta caasimadda ku beegan runtii mashruucan oo uu hore u dhagax dhigay maayarka caasimaddu waxaa caawa qaybtiisii ugu horreysay ay ka bilaabtay downtownka sidaa uu sheegay agaasimuhu kolley farxaddii ayuunbay tahay inaanu ilaa 12 habeennimo u soo jeedno howlgalkaas caasimadda bilicdeedii wax lagaga bedelayo haddii ilaahay yidhaahdo saacaddu imika waa 12 habeennimo de kolley waxaan u soo jeednay waxa weeye waa farxaddaa uu agaasimuhu sheegay geesta kalena maamulka dowladda hoose ayaa ka warbixiyey olole ballaaran oo maalmihii ugu dambeeyey ay ku baneynayeen jidad ka mid a xaafadaha magaalada hargeysa sida warkan ugu hayo waryahayga cali axmed cawaale geesta kalena maamulka dowladda hoose ee caasimadda hargeysa ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen halka ay marayso xaaladda bannaynta jidadka ee ay ka wadeen degmada gacanlibaax maalmihii ugu dambeeyey injineerka isagoo gacanta ku haya howlaha bannaynta jidadkaasi cabdilaahi ubax ayaa faahfaahin uu siiyey telefishinka qaranka waxa uu ku tilmaamay in ay si habsami ah hawshaasi u socoto waxaanuu tilmaamay inay laga maarmaan tahay gacanta looga baahan yahay bulshada ku dhaqan aagagaasi ay ka socoto bannaynta waddooyinku maadaama ay tahay buu yidhi adeeg ka wada dhexeeya guud ahaanba bulshada mashruucan sidii uu hore maayarku sheegay waa fayskii labaad ee waddada 150 dee way ay muuqataa baahi badan in loo qabay xataa nabadgelyo ahaan bay degmadu iminka dadkii meesha deganaa leeyihin meeshan ciidanka iyo dhirta iyo xabaalaha dadku habeenkii ma mari jirin ba inta badan haddii aanu qofku aanay in badan isku soo kaashanoonay soo urursan dadweynaha goobta deganna waxay runtii aad bay ugu diirsadeen waa inay soo dhaweeyeen xataa kuwii ay waddadu martay ayaa iyaga oo aan hayninba meel ay u guuraan haddana sandaqadahoodii iyo bulashooda sii furfuranaya si baahida guud ay u eegaan xildhibaan cabdilaahi awaadan ayaa isla dhinaciisa tilmaamay inay tallaabooyinka noocani qayb ka yihiin dadaalada ay dowladda hoose ku dardargelinayso adeegyada ay ka filayso bulshadii soo dooratay isla markaasina ay kuwan iyo kuwo kaleba halkaasi ka sii ambaqaali doonaan wakiilka golaha deegaanka u qaabilsan degmadaasi gacanlibaax axmed cali haybe ayaa isna dhinaciisa tilmaamay in jidkan iyo jidad badan oo kale oo degmadaasi gacanlibaax xidhan ay ku tala galeen inay sida ugu dhaqsaha badan u banneeyaan waxaana u mahad celiyey dadka ku dhaqan degmadaasi oo uu tilmaamay in badan oo ka midii ay ku gacan siinayaan howlaha la xidhiidha bannaynta jidadkaasi duqa caasimadda hargeysa mudane cabdiraxmaan maxamuud caydiid oo ka warramayay howlahan bannaynta jidadka ayaa tilmaamay in wejigii saddexaad halkaasi laga sii ambaqaali doono waa maalintii saddexaad ee hawshan socoto waddadan 150 waa distaniskay soo goysay cagaftu
waxaan filayaa inaynu iminka maalmaha saddexda cisho soo socdo gaari doono laamida berbera halkaas oo ay kasii bilaabmayso fayska saddexaad waxaa leeyahay dadweynaha la shaqeeya shaqaalaha dowladda hoose. geesta kale waxaa uu duqa caasimaddu digniin u jeediyey dadka ay ku baaqatay cashuuraadka lagu leeyahay isaga oo tilmaamay in ay qiimo dhimis u sameeyeen dhinaca cashuuraadka islamarkaasina dadka deerarka waaweyn leh iyo kuwa kale ee ardiyadaha dhulka saddexda bilood ee fooda inagu soo haya wixii ka dambeeya ganaax iyo xadhig ay ku mutaysan doonaan haddii ay cashuuraadka si habsamee usoo bixin waayaan. geesta kale waxa uu duqa caasimaddu ka warramay tallaabooyin ay doonayaan inay kor ugu qaadaan kuna soo nooleeyaan bilicda magaalada waxaana arrimahaasi isaga oo faahfaahinaya uu yidhi duqu qolada jaadka kolayada iyo meelaha ku iibisa suuqa iyo xaafadahaba inaan la ogolayn jaad dambe u bannaan yaala muddo 2 bilood gudahooda inay afarta qoray magaalada waxaan ka sameynaa xeerjaadii jaad lagu iibinayo qofkii doonaya inuu dalabkiisa soo dhiibto qofkii kalena uu maqsin 2 bilood gudahood ku kiraysto waxaan iminkana sii mamnuucnaa caleenta la hordhigo jaadka kolayada jaadka laga bilaabo sabtida soo socota kolay kasta oo hor taalo caleeni waa la ganaaxi doonaa shaqaalaha dowladda hoose way ganaaxi doonaa. gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana sheegay in loo baahan yahay sidii loo samata bixin lahaa dhalinyarada reer Somaliland ee ku jirta xabsiyada dalalka shisheeye sida warkan ugu faahfaahinayo wariyayga Cabdistaar Sabri. gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji ayaa maanta ugu baaqay dadka tahriibayaasha ah ee u dhashay dalka Somaliland ee ku xirxiran xabsiyada ka baxsan Somaliland in ay haddii ay awoodaan xiriir la soo sameeyaan xukuumadda Somaliland isagoo tilmaamay inay ballan qaadayaan inay ka hawlgalaan dadaal ballaaran ay geliyaan sidii ay uga soo samata bixin lahaayeen xabsiyada iyo tacadiyada ku haysta wadamada shisheeye. inantii halkan ka hadlaysay tuban bay ahaayeen jeel Sacuudi Arabiya ku yaala ay ku xidhnaayeen goor gelin dambaaba iyo jeeliga la soo hadlay iyagoo markaa runtii waxay ahaayeen 6 hablood oo reer Geesaa iyo 4 reer Burca kullay qolada reer Burca oo tidhi kuleelka lagu yeesho qoladii reer Burca ay soo dhiiratay inaan bay la soo hadashay waxa ku warjaa Burca ku xidhanay nala dabaalo habeenka kullay aad wax xusuusanahay ilaa madaxweyne ilaa wasiir dibadbadeed ilaa wasiirka duulista iyo hawada ilaa aniga ugu hooseeyo dhammaan fadhigaan ka wada kacnay waxaan ku wada dagaalanay in dumarka gacanta la soo geliyo waxaan ku guuleysanay alxamdulillaah rabbil caalamiin. gudoomiyaha Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay kulan ballaaran oo maanta kaga qayb galay magaalada Burco kaasi oo lagu soo bandhigayay 20 dhalinyaro ah oo jaamacadda magaalada Burco wax ka barta oo loo sameeyay shaqo abuur isla markaana lagu meeleeyay hay'ado kala duwan oo iskugu jira kuwa dawliye iyo kuwa madax bannaan. kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda loo yaqaano IOM gudoomiyaha jaamacadda magaalada Burco Salebaan Dirar ayaa isaguna waxa uu tilmaamay inaan guud ahaanba Somaliland aan la oran karin waxa ka jirta shaqo la'aan. jaamacadda magaceeda ku hadlaya in shaqo la'aan ma jirto ma qabo waxaan u qabin ma rabtaan aydin inaad yani shaqooyinka mushaharka yar la in la qabto lama qabto ka duwanaa kulamo badan oo magaalada Burco lagu qabtay ayaa waxa ka dhex muuqanaya dhalinyaro aad u tiro badan oo ku faraxsanaa shaqooyinka horta leh ee loo bilaabay oo in muddo naawilayeen. akale iyaguna waxa munaasibadan goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha saraakiil sarsare oo ka socota laamaha dawladda waxaana ay dhamaantood ballan qaadeen inay soo dhaweynayaan qorshe kasta oo shaqo abuur loogu sameynayo guud ahaanba dhalinyarada la dariska waxbarashada ee jaamacadda magaalada Burco. وعبدالستار صبري تيفيغا قرنك Somaliland Burco. wararkaanu ka helayna wariyahayaga gobolka Sool ee Barkad Cumar waxa kamida xafiiska TV-ga qaranka ee magaalada Laascaanood ayaa maanta booqday kastamka bari ee magaalada Laascaanood halkaas oo ay ku guda jireen hawl maalmeedkoodii caadiga ahaa waxaana halkaas kula kulanay Maxamed Cabdi Nuur oo ah sarkaal ka tirsan laanta kastamka Laascaanood oo ka warbixinaya habka ay u shaqeeyaan kastamka bariga magaalada Laascaanood. naga midaaba aynabu waa martaano gobolka nagu xignaa marka qarsado ama meelaha barmideeyada oo kastamada kala bay ku sii dhacaan. taliyaha laanta turbataariyada ee gobolka Sool oo isaguna nooga waramay oo sheegay in ay ka shaqeeyaan 3 goobood
oo ku yaala gudaha magaalada laascaanood hadaladiisina waxaa ka mid ah sida tan booliska gobolka sool ilaa taliyaha qaybta ilaa barasaabka wax isku duban baa ahayd gobolka waxa ka socotay cashuurta kaliya ka socotay customka uu waxa iminka ilaa iyo haddana iyadii baa socotaa waan fiirinaynaa ilaa iyo cashuuraha beriga sanadka cusub hadda la idmo bisha koodeeda sanadka cusub inuu soo socdaa inaadeen way jiraan wadadu way farbadan tahay ilaa iyo ergaabo xadkaas ilaa 5,000 oo wado lagu qiyaasaa wadooyinka faraha badan ee macnaha ee soo gala ama dhaafa magaalada Jibril Xasan oo taliyaha laanta socdaalka ee gobolka Sool isaguna ku sugnaa barta kantaroolka ee bariga magaalada Laascaanood ayaa warbixin kooban ka siiyay TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland wana waramay hawl maalmeedkooda taasoo ka codsaday bulshada isticmaasha kastamka waxaana noo sheegay in magaalada Laascaanood ay ka shaqeeyaan immigration-ku iyo guud ahaan gobolka Sool kastamka bariga magaalada Laascaanood ayaa xilligan ay ka socotaa hawl ballaaran oo ku aadan cashuur ururinta waxaana mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee magaalada Laascaanood ugu baaqeen bulshada ka ganacsata gaadiidka maciishada inay cashuurta bixiyaan cashuurtuna ay tahay horumarta deegaankooda barkad Cumar Axmed telefishinka qaranka Somaliland Laascaanood gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Daadmareer ayaa kormeer ku soo maray goobaha waxbarasho ee gobolkaasi kormeerkaasi uu ku kurgelayay habka ay u socoto waxbarashada gobolka Daadmareer sida warkan ugu diyaariyay ama ugu soo diray wariyahayaga Muuse Saleebaan kormeerkan maanta gudoomiyaha waxbarashada gobolka Daadmareer ku soo maray qaar ka mid ah dugsiyada gobolka ayuu ugu kurgelayay xaaladda waxbarasho ee gobolka taasi oo ku soo indheeyay dugsiga hoose dhexe ee Haragwaafi iyo waliba dugsiyada tuulooyinka Ceelsame iyo Ceelbilcille kormeerkan ay qayb ka ahaayeen gudoomiyaha gobolka iyo waliba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka waxayna madaxdani halkaasi khudbado ku taxalluqa dhiirigelinta waxbarashada uga jeediyeen macallimiinta iyo waalidiinta iyagoo kula dardaarmay inay ardayda kula waxbarashada isla markaana laga soo noqday fasaxa gaaban ee 3 biloodka gudoomiyaha waxbarashada gobolka Daadmareer Kayse Cabdi Ducaale macallimiinta iyo gudiyada waxbarashada tuulooyinka Ceelsame iyo Ceelbilcille ayaa ku booriyay inay dhalinta ku dhiirigeliyaan waxbarashada isagoo gudoomiyuhu tilmaamay in waqtigan oo laga soo laabtay fasaxa gaaban ee 3 biloodka ay ka maamul waxbarasho ahaan xoogga saari doonaan dugsiyada tuulooyinka xildhibaan Cambarowshe iyo xildhibaan Cabdullaahi Ciise oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa iyaguna bulshada kula dardaarmay inay dhiirigeliyaan waxbarashada gabagabadiina gudoomiyaha gobolka Daadmareer Jamaal Xuseen Hurre ayaa ka warramay qiimaha ay leedahay waxbarashadu iyo sida loogu baahan yahay in laga wada qayb qaato isagoo bulshada iyo waalidiintana kula dardaarmay inay ku dadaalaan sidii ay u dardargelin lahaayeen waxbarashada Muuse Saleebaan Maxamed telefishinka qaranka Somaliland magaalada Oodweyne akhyaartii daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee sida tooska ah nagula socday shaashada telefishinka qaranka Somaliland aad ayaad ugu mahadsantiin qadarkaad waqtigiina nasiiseen intaasi waxaan ku soo gabagabaynaynaa warka telefishinka qaranka Somaliland anigu Axmed Xarjida ayaan idin socodsiinayay intaan warka xiga ku kulmanana waxaan isku dhaafayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh